madaxweyne Farmaajo oo ka qayb galayay munaasabadda xuska maalinta ciidanka xoogga dalka waxa uu sheegay in si dalkan ammaan loogu helo uu wada hadal la furayo madaxda al-shabaab. madaxweyne Farmaajo waxa uu intaa ku daray in dawladdiisu ay qaadayso tallaabo kasta oo ammaan darrida dalka wax looga qabanayo gaar ahaan caasimadda. waxaan diyaar u nahay inaan la hadalno shabaab xitaa madaxdooda kuwa ku khasban inay la joogaan kuwa inkaarta qaba oo dibadaha nooga yimid oo doonaya dalkan iyo dadkiisa inay wax yeelayaan ama ay dhibaateeyaan. haddana mar labaad waxaan rabaa inaan ugu baaqo dhalinyarada shabaab oo la khalday oo la marin habaabiyay inay ka soo noqdaan oo noo soo noqdaan. annagu waalahood baan nahay, waa ilmaheenna. waxaan ballan qaadin haddii noo yimaadaan sidii hadda ka horba aan yeelnay. waxaan ballan qaadinaa inaan meel dejinno, waxaan ballan qaadinaa inaan mushaahar siino, waxaan ballan qaadinaa in aan waxbarasho iyo farsamo aan siino si ay ugu noolaadaan. waa uu sii hadlay madaxweyne Farmaajo oo waxa uu yiri mar kale waxaan ku celinayaa in cafis aan u fidinay dhalinyarada ka barbar dagaalanta al-shabaab. waxa kale oo muhiim ah dib u heshiisiin kale oo ayaan dhaweyd 10 bari ka hor markii aan ciidamada magacawnay 7 bari ka hor aan cafis u fidiyay shabaab iyo nabadiidkaas aan u fidin cafiskaas oo aan niri waxaan doonaynaa inaad dib ugu soo noqotaan dadkiina muddo 60 casho ah 2 bilooda. cafiskaasi waa naga dhab 57 sano oo laga joogo sanad guurada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aasaaskooda marka la eego 1960kii. maanta halkan oo ah wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda Soomaaliya waxaa ka dhacday munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay waxaana ka soo qayb galay madaxda ugu sareysa dalka iyadoo uu jawi wanaagsan ku soo dhamaatay ugu dambeynna. Cali Aadan Muumin, Goobjoog, Muqdisho.